Hello, السلام عليكم. مقعيك وصلات موسى محمود كسولو جنالك صلاة سومالي تكنولوجي tutorial keenii C language ayaa noo socdo topic-een wuxuu ku saabsan yahay decision making waxa loo qaybiyaa afar qaybood if statement, switch statement, conditional operator statement iyo go-to statement. waxaan qaadanay number 1 if statement wuxuu kala baxdaa أفضل غير أيضاً simple if statement if else statement else if order nested if else statement وحنا هذا سوق هذاني simple if statement on number 1 number 2 if else statement وان سوق هذاني so begin وسابسين هاي today xalaqadiisii saddexaad else if later else if later syntax-keeda waa qaabkan if condition 1 statement 1 else if condition 2 statement 2 else if condition 3 statement 3 else if condition n statement n else default statement x if uu ka bilaabana lastig wuxuu dhamaanaa else inta dhaxana waxa waa else if okay waxa sameeyna code ka dhamayso oo execute aad samayso wuxuu sameynaa condition 1 first if statement condition 1 ayuu jeegreynaa condition 1 haddii ay true noqoto sax statement 1 ayuu console-ka mashaashada noogu soo bandhigaa oo noo daawacaa haddii condition 1 oo qalad ay noqoto false then next statement ayuu gudbaa oo else if oo imaana condition 2 ayadana hadii sidoo kale ay true noqoto statement 2 ayuu console-ka noogu soo bandhigaa ama soo noo soo daabacaa shaashada hadii ayadana qalad noqoto next wuxuu imaana condition 3 sidoo kale hadii ayadana sax noqoto oo iyadoo noo soo bandhiga hadii qalad noqotona wuxuu gudbaa else if condition n macnaheedu waxa waa continue waxa 4 5 6 7 يعني و continue unlimited so unlimited maadaama ay tahay wax soo qaadanay n marka n wuxuu taagantay yani condition kaaga ugu dambeeyay condition n macnaha waa last condition ka weega last condition ka hadii yani sax noqoto statement n oo condition ugu dambeeyay ayuu noo soo bandhigaa console-ka ama shaashada uu noogu soo daawaca hadii false noqoto then wuxuu gudbaa ls macnaheedu waxa waa tii ugu dambeysay way dhamaatay maadaama if uu ka soo bilaabay else if then lastig hadii yani else condition n oo ka ugu dambeeya haduu qalad noqdo yani wuxuu imaana else macnaheedu waxa waa maadaama waxaad gelisay input-ka gelisay hadii uu qalad noqdo then else condition-ka else ayuu ku daabaca waxa waa default statement ayuu noo soo bandhigaa so statement x then so program كان أيوة جود قلنا واحد استعمالنا always واحد استعمالنا code block so سيدا دولو سقطت lesson كان خبوس سابسين هاي ls if later so ls if later syntax كي الواقع كان so program كو سابسين ls if program مهم أما يعني كو هبون وكفاية دونتو أما سو كفهمي دونتو هاي إنه سوق هذانا صار وقت استعمالنا age وكلا استعمالنا age ما دام age و simple هذيك يعني تفهمي كتا وفود استعمالنا age waxaan qaadanaynaa inti age asiga yani wax point ma lahanano waxaan qaadanaynaa integer hadii tusaale kale wax point yihiin for example qiimo shay kale qiimihiisa tusaale kale point la socdo 5.8 qaabkaas oo kale asiga float qaadanay ama double hadii yani oo point weyn u yahay so hadda waxaan qaadanaynaa maadaama age isticmaalayna age asiga point ma lahan waxaan qaadanaynaa inti hadda declaration ku sameeynay سميني برينت اف انتر ايج ايضا يعني شاشة هدودي وكنوغو سو بندقا انتر ايج برينت اف waxaa u geliso هدودي sidoodii ugu soo bandhigaa then scanf ayadoo waxa waa
input kaaga markaad doonaysid inaa yacni input ahaan geliso oo after run markaa input ahaan u gelinaysid waxaa isticmaalaya scanf. haddii aad doonaysid hadda inaa yacni banaanka ka geliso caadi meeshana yacni geline age equal waxaasaa leedahay. laakiin haddaad doonaysid yacni inaa banaanka ka geliso after compile ina geliso haddaa u baahan tahay after run time waxaa qaadanaya scanf. so waxaan leenahay percentage d. why aan percentage d u dhahaa because age waa inti maadaama uu yahay waxaan qaadanaya percentage d oo decimal waa decimal number. so waxaan leenahay an age next waxaan leenahay inta markaa qaato waxaa imaanaynaa waa kana codkeena bilaabanaynaa ifanka bilaabanaynaa to ls last. hadda ifanka bilaaba okay ila soco if aan leenahay if age is less or equal 1 semicolon ls if age is less or equal copy aan soo dhahanaynaa si ay noogu fududaato.
okay code can waa dhameynay waxaan sameynay int age qofka da'diisa age-ka then waxaan dhahnay int age scanf age-kan gelinay age-kaaga haddii uu less than equal 1 haddii uu age-kaaga ku hooseeyo ama uu leeyahay 1 waxaa tahay la dhahay new baby waxaa tahay new baby else if haddii kale age-kaaga haddii uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 1 an calaamadan an waa logical operator la waa sample-ka an logical operator markii yani doonaysid laba walxaatood ku sameyso yani join isku biirisa camal ama connection ay ku noqonay wuxuu noqonay connection yani isku xiraysa age is less than equal to waxaa leedahay milk baby haddii qofku uu yani ka hooseeyo ama uu leeyahay 1 haddii uu ka wan yahay meeshaan ka dhig 8 haddii uu ka wan yahay ama uu leeyahay 1 age-kana uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 2 waa milk baby tahay else if 8-kaaga haddii uu ka wan yahay haddii uu ka wan yahay ama uu leeyahay 2 aan age-kaaga uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 5 waxa taale balay iskuulkiid waa caruurta iskoolka lagu ersiyo haddii age-kaaga uu ka wan yahay ama uu leeyahay 5 aan age-kaaga uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 15 young tahay baby matid milky baby matid play school kid matid laakiin hadda young tahay else if waa lastigi waa conditional and waa lastigi ugu dambeeyay age-kaaga haddii uu ka wan yahay 15 nagasti an age-kaaga uu ka hooseeyo 50 waxaa tahay waxaa tahay MTF adult waxaa tahay adult qof waxaa tahay major statement kasta waa ina simi karo u dambeysaa then nagasti waxaa leedahay ls printf all okay intaas da'daada intaas haddii noqon diido 50 iyo wixii ka hooseeyo waxay leedahay yani intaasaa tahay camal haddii aad hal la ka hooseyso ama la eg tahay new baby aad tahay haddii aad ka weyn tahay hal amase la eg tahay kana hooseyso amase la eg tahay 2 milk baby aad tahay adiga oo lastiga haddii aad 50 ka weyn tahay 15 haddaa ka weyn tahay kana hooseyso 50 konton waxaa tahay adult intaas haddii aanad ahayn maxaa tahay intaas haddii aanad ahayn elsaa tahay oo old yani qof da aha tahay intaas haddii aanad ahayn qof da aha tahay waxaan sameynaynaa bilti aan sameynaa waxaan ku sameynaynaa combine enter age-kayga waxaan leeyahay tusaale 1 waxaa taal dhan new baby hoos maxaan dhahnay age-kaaga haddii uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 1 haddii uu leeyahay waa in hadda 1 aan dhahay waan la egahay new baby ana tusaale waxaan leenahay haddii age-kaaga uu ka wan yahay ama uu leeyahay 1 kana hooseeyo 2 waxaa tahay milk baby tusaale waxaan leenahay 2 nagasi 2 aan leenahay milk baby okay nagasti waxaan leenahay tusaale 5 aan leenahay 5 maxaa waa play school kid 5 is waxa waa play school kid meesha waxaa dhahan age-kaaga haddii uu ka wan yahay 2 nana leeyahay age-kaaga ka hooseeyo ama uu leeyahay 5 waxaa tahay play school kid age-kaaga haddii uu ka wan yahay 5 waxaa tahay ama uu ka hooseeyo ama uu leeyahay 15 tusaale kale waxaa tahay young waxaan leenahay tusaale 15 maxaa waa 15 waa young waxaan leenahay tusaale 45 waa adult 45 waa adult nagasti waxaan leenahay tusaale 55 waa wuxuu noqonaa ls waa lastiga waa old ya tahay waa kana 55 waa old nagasti sanaay ls if later halaas intaasuu noogu egyahay topic kale wuxuu ku saabsanaan doonaa nested if and statement waa lesson ugu dambeeyo cashirkeena if statement